hadda gacanta lagu hayaa ciidan xamar ka yimid oo magaciisa iyo tiradiisa iyo codkiisa iyo baaritaankiisa inay Somaliland argagixisa ka abuuraan hadda ku yimi oo ciidamadeena booliiska uu qabtay halkan oo wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland waxa shir jaayd ku qabtay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed Maxamed Kaahin wuxuu eedeymo u soo jeediyay musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee waddan isagoo ku eedeeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed waxa uu eedeymo toos ah u soo jeediyay isla markaana uu ku eedeeyay inuu ciidamo amniga khalkhal gelinaya soo geliyay gudaha waddanka musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee waddan isagoo sheegay inuu arintaas cadeymaheedii hayay isla markaana uu ka jawaabi doono wixii ka soo noqda بريتولة جوابها الله عيمي مظاهرات مالك بحسن أي تجان حزبية المعارض كام تاجرياش وده يكون مظاهرات لما كانوا روحوا أمر سي إذا ماذا قرن كالسومالي الآن ما دام أنا عيني جوابه لجو قبنا يي بنام بحيدا وحن هل كان كعدينا يا شعب كالسومالي لأن وشيء جياه maadaama si saaxiibtinimo ah oo nabadgelyo leh oo Somalilandnimo leh oo wadaninimo leh aanu una soo dhaweynay xuquuq badan oo ay leedahay xukuumaddu iyo aniga laftaydu wasiirka dakhiliga in aan maamulo aanu ku bedelanay in aanu arrinka muddada muranku ka taagnaa isfaham ka gaadhno waxaan halkan ka cadeynayaa meel kasta oo aan ahayn goobihii aan anigu cayimay oo xeer number 51 2012 qodobkiisa tobnaad iyo tobnaad iyo koob iyo tobnaad iyo laba iyo tobnaad oo xuquuq aniga ii siinaya in aan maamulo cid goob kasta oo aan kuwii la cayimay aan ahayn waxa weeye waa sharci darro waa saddex musharaxa xisbiga wadani ee qolankii anigu aan qoraalka u qoray diiday inuu ku yimaado ee gudoomiyaha kale Faysal Cali Waraabe uu ku yimi ee labada maalmood noo socday ee iman waayay qaraarka uu iminka caawa jeedinaya waa khalkhal nabadgelyo darro oo dagaal Somaliland ka abuurayo shicibkaanu sheegayaa waalidka caruurtooda lagu khamaarayaa baan u sheegayaa dadweynaha shicibka ee Somaliland baan u sheegayaa arrinka kale waxa hadda gacanta lagu hayaa ciidan xamar ka yimid oo magaciisa iyo tiradiisa iyo codkiisa iyo baaritaankiisa inay Somaliland argagixisa ka abuuraan hadda ku yimi oo ciidamadeena booliiska uu qabtay waxaan halkan ka sheegayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro inuu ciidanka halka yimi qofka xidhiidhka qale ee lacagaha u diray inuu ka mid yahay markaan golaha intan leey ka sheegayo marka aan leeyahay Cabdiraxmaan baa u diray anigoo shaqadayda hore ee militarigu ahaan jirtay qaybta militariga la yiraahdo intelligence-ka wardoonka oo sida wararka loo maamulo garanayo daadana maanta jooga xilkana haya anaan qof jiran ahaanaynin dambiga ka soo baxana aniga qaadaya arrintaasna fagaare shicibka Somaliland loo soo bandhigayo dadkaana loo soo bandhigayo in allaaliya inta ku shaqale ee kiisaska samaysana aan laga qarinaynin ayaa lagu baaraya waxaanu muddo ka warwareegin ciidanka aan idin farayno ee idin leenahay dhaxantana u saaxan cadceedana u jooga waa kii warqadda 7 bisha idinka qaadayay idinka qorayay inay xaaraan tihiin aydan ciidan hayn hadda doonayo inuu Bariitana dawladda noqdo idinkana idin xukumo laakiin waxaan idin leeyahay dad waxaad tiin waaya araga
dadkii Somaliland meesha adag ka soo bilaabay baa tihiin dadkii idinkoon mushahar qaadan oo raashin lahayn ugu horeyntii ciddii aasaasantay institutionadii ugu horeeyay ee aasaasmay baa tihiin waxa idin qabaan iyo ceebeyntooda ha eegina qaranka aad u halgamaysaan eega ee calaamadihiisii qarannimada ha aasidaan waxaan idin faraynaa in aad berrito arrintaa mudaaharaadka si fiican uga shaqaysaan cid allaale iyo ciddii goob aan loogu talagelin mudaaharaadka ka qabanaysaana nabadgelyo darray qaranka ku abuuraysaa iyo khalkhal tallaabo sharciya baa ka qaadaysaan mas-uuliyadda xadgudubka sharci khalkhal abuurka aan lagu samaynayo goobaha la xadiday goobo aan ahayn waxaa mas-uul ka ah oo keli ah labada xusbi mucaarid madaxdooda guddoomiyeyaashooda musharaxiintooda madaxweynaha ayaa mas-uul ka ah cid kaloo mas-uuliyadda la qaadaysaana ma jirayso sharcina dalka wuu jiraa sharcigaana waa la isticmaali doonaa aad iyo aad baa u mahadsantahay naciime cabdi axmed carre edeg miidiya hargeysa